sanadii 1945 tuulo yar oo ka mid ah waddanka Jamaica waxaa ku dhashay wiil sabool ah. waa Robert Ernesto Marley, wiil yar oo aan lahayn wax cid ah, sidoo kalena aan lahayn wax awood ah, laakiin qalbigiisa waxaa ka dhex guuxayay hal abuur iyo riyo weyn. waa in muusigu uu noqdo rasaas iyo halgan lagu jubiyo dulmiga iyo cadaadiska. ninka aynu ku hadlaynaa saaxiibayaal nin kale ma ah waa Bob Marley. haddaba soo dhawaada saaxiibayaal sheekada Bob Marley oo faahfaahsan ayaynu muuqaalkiina maanta uga hadli doonaaye. fadlan inala soco oo ilaa iyo dhamaadka inala gaar. haddii ay tahay markaad kugu horeeyo oo aad soo booqatana channelkiina subscribe noo saar si aad noola socotid. Bob Marley magaciisa dhabta ah waa Robert Ernesto Marley, wuxuuna dhashay 6 Febraayo sanadii 1945 tuulo yar oo lagu magacaabo Nairmel oo ku taala gobolka Siniti ee dalka Jamaica. aabiis wuxuu ahaa nin cadaan ah oo Ingiriis ah. hooyadiis waa haweeney Jamaican ah oo sabool ahayd. isku darkaas ayaa ka dhigay Bob Marley wiil aan si buuxda looga aqbalin bulshada dhexdeeda. mararka qaarna waxaa loo arki jiray mid aanba meel lahayn, yacni qof aan waddan sax ah lahayn, sababtoo ah aabiis iyo hooyadiis waxay ka soo kala jeedaan laba waddan. taas ayaana ka dhigtay inay bulshadu u arkaan qof aan ka mid ahayn ayaga. waxa uuna dareemi jiray faquuq. Bob Marley waxa uu bilaabay muusiga isagoo yar, isagoo gitaar ka samaysan jiray qalab fudud. dhammaadkii 1950yadii waxa uu ku biiray dhalinyaro kale oo jacayl u qaba muusiga. waxa uuna sameeyay koox waxayna qaadi jireen inta badan riigaha. wuxuu ahaa cod cusub balse uu ka buuxo erayo dagaal ah, fariimo nabad iyo cod ay ku hadlaan dadka aan codka lahayn. waa dadka masaakiinta ah. Jamaicanku waxay u arkeen inuu yahay Bob Marley codkooda, yacni qof ay ku dhex gudbisan karaan fariimaha. haddaba saaxiibayaal markii la soo gaaray sanadii 1970yadii Bob Marley iyo kooxdiisii waxay heleen heshiis caalami ah. heesaha ay ka mid yihiin No Woman, No Cry, Get Up, Stand Up iyo One Love ayaa noqday kuwa dunida oo dhan laga maqlo. Bob Marley ma ahayn fanaan keliya, waxa uu noqday halgama siyaasadeed iyo mid bulsho. heesihiisu waxa ay ka hadleen cadaalad darro, dulmi iyo rabitaanka xorriyadda dadka madow iyo kuwa saboolka ahba. Jamaica waxa ay markaas ku jirtay xaalad siyaasadeed oo kacsan. xisbiyo hubeysan ayaa dagaal siyaasadeed ku jiray, waxaana Bob Marley loo arkayay inuu yahay cod midayn kara shacabka. taas darteed taariikhdu markay ahayd 1976 koox hubeysan ayaa gurigiisa ku soo weeraray isaga, xaaskiisa iyo saaxiibtiisaba. dhaawac ayaana ka soo gaaray weerarkaas, balse ma uusan u joojin. dhowr maalmood kadib isagoo oo dhaawac weli ku yaal jirkiisa ayuu ka soo muuqday leef oo dadweyne badan daawanayay. waxa uuna muusiga ku tumay sidii halyay aan cabsi aqoonin. markaas ayuu yiri, dadku waxay isdilaan hal maalin oo kaliya, anigu waxa aan muusiga tumaa noloshayda oo dhan. haddaba saaxiibayaal sanadu markay ahayd 1977 Bob Marley waxaa la ogaaday inuu ku dhacay cudurka kansarka, kaas oo ka bilowday suurka lugtiisa midig. dhaqaatiirtu waxa ay kula taliyeen in lugta laga jaro si cudurka loo joojiyo, laakiin waxa uu ka diiday, isagoo sheegay in jirkiisa la gooyo ay khilaafsan tahay aaminsanaanta caqiidadiisa Rastafariga, taas oo ahayd diin oo aaminsanay. waxaa la sheegay dhimashadiisa in ay ka dambeeyeen sirdoonka Mareykanka kadib markii kobo gifti ahaan loogu keenay loo hoos geliyay cirbad sumaysan. booqashadii Bob Marley ee Afrika. Bob Marley waxa uu si weyn ula dhacsanaa Afrika, wuxuuna aaminsanaa in Afrika ay tahay hooyada dadka madow oo dhan. waxa uuna tegay Ethiopia, Zimbabwe iyo meelo kale oo Afrika ka mid ah. waxa uu taageeray halgankii xorriyadda ee Afrika. sanadii 1980 waxa uu ka qayb qaatay xafladda xorriyadda ee Zimbabwe, isagoo heesihiisii ka dhigay codkii midnimada qaaradda. ugu dambeystii waxa uu geeriyooday cudurkii kansarka ah, kaas oo ku faafay jirkiisii dhammaan. ugu dambeysna waxa uu gaaray xubnaha jirkiisa ee muhiimka ahaa. ugu dambaystiina waxa uu geeriyooday 11 May sanadii 1981 isagoo oo jira da'da 36 sano. haddaba saaxiibayaal halkaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeeni maanta oo aynu uga hadlaynay taariikhda Bob Marley. tani ma ahan taariikhda Bob Marley oo dhammaystiran, laakiin waa qayb yar oo ka mid ah. haddii aynu dhahno waxa aynu ka hadlaynaa taariikhdiisa kama gaarno oo laguma soo koobi karo muuqaal. oo waxaa jira buugaag badan oo laga qoray, qofkii raba inuu akhristana oo heli karo.
fadlan haddii aad halkan nala soo gaartana inagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.